saare xuseen aad u maasan tahay waxaan faaqiidaynay qodobadeedii ay ku sheegtay ciladaha ragga waxay u dambaysiisay taakuleeye aniga xaggayga waxaa la yidhahdaa qoysbile taakuleeye iyadoo bixisay taakuleeye waxay ku macnaysay sahra ninka samirka badan garashada fiican ixtiraamka badan reerkiisa si hoose uga warqaba xaaskiisa marka jecsan tahay la shaqeeya ilmihiisa u sheekeeya markuu maqan yahay ka fakara markuu joogana ku dhex jira wala fiirso markuu maqan yahay waa ka fakaraya markuu yimaadana gurigiisii ku dhex jiraayo ilmuhu la sheekaysanaya wuxuu fahmayaa ilmihii meeshii jiran wuxuu fahmayaa kii xanuunsan wuxuu fahmayaa midkii xanaaqsan wuxuu fahmayaa midkii dan leh oo problem haysto hooyadii buu la sheekaysanayaayo xawaashii guriga la sheekaysanaya wuu caawinayaa waqtiga jilicsan tahay ayuu caawinaya taakuleeye waa nin farxad ku qaabila gurigiisa farxad markuu gelaya waa farxsan yahay markuu ka soo tagayna waa farxsan yahay sababtoo gurigaaga meel kaaga farxad badan ma jirto sababtoo waxa kuu yaala meelaad ka helaysaa ma jirto awlaad baa kuu joogta xaaska jeclayd baa kuu joogta waa meesha ku indhaqowsanaysa oo ilaahay awlaadda kaa siiyey waa meesha gacalsaadu kuu joogto markaad gelayso waa inaad habi tahay oo faraxsan tahay oo ku faraxsan tahay inaad la kulmayso xaaskaa jeclayd oo guriga kuu joogtay ee aad ku aamintay maalkaaga magacaaga iyo naftaada waa inaad ku faraxsan tahay awlaadaadii ilaahay ku siiyey oo maanta aan si kale lagu heli karaa jirin ilaa ilaahay dad inuu kaa siiya maahan awlaadda laysma siiyo lama kala gato laysma amaahiyo iyadaa ku dhashay ilaahay baa ku siiyey laakiin sabab iyadaa kugu ah ya waxaan la gadan karin oo iib ahayn oon lays amaahin oon laysa siinin waa dadka waxa kale adduunka waa la helaa intaa gurigay kugu joogto haddaad ku farxi weydo oo markaad gelaysa habi ku noqon weydo oo markaad habi ku noqon xaggee joogta marka waa ninkaas taakuleeye waa ninkaas noocaa ah waa ninka shaqadaa qabta waa ninka reerkaas ku hogaamiya wadada saxda ah waa ninka qorshe iyo yool iyo leh wuxuu higsanayo sanad walba qorta wuxuu sanadkan reerkan gaari lahaa waa ninka hadduu xataa qoysas badan leeyahay oo hal qoys maaha Soomaaliya inta badan guursatay qoysas badan hadduu leeyahay waa ninka u dhaxeeyo oo fahamsan oo kulligood dhexda u fadhiyo oo qoys walba farxadiisa iyo noloshiisa siiya waa ninka fahamsan mas'uuliyadda ilaahay saaray waa ninka garanaya mas'uuliyadda shakhsiga ah iyo midda diimeed ee saaran ee gurigiisa ka saaran waa ninka u tababaray ilmihiisa say berita u noqon lahaayeen dad macno leh oo nolosha fahamsan waa ninka xaaskiisa kala qayb qaata waqtiyada mashaakilaadka taakuleeye waa ninkaas waxaa loo baahan yahay marka dhammaan rag oo dhan inay noqdaan taakuleeye fahmaan booska ilaahay siiyey mas-uuliyadda ah si fiicanna u gutaan waxaanu soo dhammaynay insha allahu labadii barnaamij oo ay gabadha sahra ka diyaarisay ragga waxaadna ogaataan qaybta dumarka ka hadlaysa ee iltaag lugtaag ee gacantaag waxay ka hadlaysaa habdhaqanka dumarka sida dhaqan bay ka hadlaysaa habka gabadhu u dhaqmayaan qaybta ragga oo hadda aanu soo dhammaynay oo taakuleeye u dambeeyo waxay ka hadlaysaa mas-uuliyaadkii ragga ayay ka hadlaysaa oo dhammaan waxay taabanaysaa waxyaaba ama damiirka qofka ah ama noloshiisii taabanaya oo mas-uuliyaad bay ka hadlaysaa marka waa in sidaa loo fahmaa labadaa qaybood oo ragga iyo dumarka ah qolo walbana ama qayb kastana ay inta akhriso iska dhex fiiriso booska ay ku jirto hadduu xun yahay waa inay ka baxdaa hadduu wanaagsan yahana waa inay adkaysataayoo sii hormarisaa anigoo rajeynaya insha allahu tacaala casharkeena dambe inaan ku kulmi doono waa cismaan sheekh qoysbile oo idin leh kulanti wanaagsan kulanti dambe oo xiise leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu